الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. waxaan shir jaraa'id u qabanay oon cambaaraynaynaa falkii foolxumada ahaa oo arxan darrada ahaa oo ka dhacay deegaanada galmudug. aad iyo aad aan uga xunnahay, waana cambaaraynaynaa, waana ka tacsiyeynaynaa. intii dhimatay allah u naxariisto, intii dhaawac ahna allah caafiyo. waa arrin aan ku fiicnayn islaamnimada, soomaalinimada, bini'aadanimada intaba aanan ku fiicnayn, oon raad ku lahayn waaye. dhacdo soo socotay oo aan mar ahayn oo laba mara, laba maalin ka hor yay ahayd tii ka dhacday dhuusamareeb. tan kalena tii xalay dhacday bay ahayd. runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye. dad onosanti ama saakiin ah oo shaqaysanayo oo daruufahoodii nolosha la tacaamulayo, in ayagoonan waxba galabsanin inta loogu tego deegaankoodii iyo guryahoodii iyo meeshii ay deganaayeen lagu dilo. aad iyo aad baan uga xunnahay, wax loo dulqaadan karana maaha. waa ka tacsiyeynaynaa maamulka galmudug, odayaasha dhaqanka galmudug, siyaasiyiinta galmudug intaba waxaan ka rabnaa oon uga fadhinaa dhacdadii labadii dhacdo oo galmudug ka dhacday labadiiba inay naga soo siiyaan jawaab degdega. dadkii falkaas geystay oo dadkaas masaakiinta ah dhibaateeyey inay jawaab degdega naga siiyaan, oy cadaaladda geeyaan, oon aragno sida ay u dhacday arrintaas sida ugu dhaqsaha badan. maamulka galmudug iyo odayaasha dhaqanka galmudug iyo siyaasiyiinta reer galmudug oo dad aan dhaqan iyo xiriir iyo saaxiibtinimo iyo wada noolaansho iyo walaaltinimo fiican aan lahayn ahaa, waxaanan ka filayninna ay tahay. si kastaba ha ku timaado, waxaan uga fadhinaa inay jawaab degdeg ah naga soo siiyaan arrintaas, oo ay yidhaahaan ciddii waxaan suubisay ay noo soo sheegaan, ay gacanta ku qabtaan oo ay soo saaraan maxkamad sida ugu dhaqsaha badan. taasaan uga fadhinaa dadka maamulka galmudug. dowladda federaalka iyo adduunyada dhanna kulli waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas ay kala shaqeeyaan sidii xal waara loogu heli lahaa. runtii waa dhibaato weyn oo xanuun badan. dadka reer koonfur galbeed oo dadkaas ehelkooda ah, samir iyo iimaan allaha ka siiyo, ayagana naxariistii janna allaha geeyey intii dhimatay. adinkana reer koonfur galbeed iyo shacabkii dadkaas ehelka u ahaa, waxaan ka rabnaa intii baaristaas iyo mas-uuliyaddaas aan galmudug uga fadhina ay socoto, inay isdejiyaan, aan ogaano say wax u dhaceen, aanan wax kale la suubinin. waxaanoo dhan samaynaayo oo ummadda meel kasta ay joogaan ay faa'iido ugu tahay waa cadowga ugu weyn oo soomaaliyeed oo shabaabka ah wey. mushkiladda ummadda soomaaliyeed isku diraysa waxaa ka faa'iidaysanaya shabaab, waxaa dadka iska horkeenaya waxaa weeye shabaab. sidaas darteeda yaanan gacan la siinin. arrintan galmudug yaan uga fadhinaa inay jawaab degdega naga soo siiyaan ooy cadaaladda mariyaan dadkii suubiyey. annaga maamul koonfur galbeed ahaan waxaan suubinnay oon ku dhawaaqnay guddi degdeg ah oo arrintaas ka shaqaynayo, oo sida ugu dhaqsaha badanna meesha u tagaayo, oo ogaanayo meeshaas wixii ka dhacay, oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaano. yaan sida ugu dhaqsaha badan ugu diri doonaa hadduu ilaahay yidhaaho maamulka galmudug, oo arrimahaas iyo shacabkaas meesha ku nool arrintooda wax ka ogaan doono. ugu dambayntii, dadka reer galmudug ee gobolladaas joogo, gobollada kaloo soomaaliyeed, saa ogtihiin soomaaliya waxay qaadatay system federaal ah. meel kasta oy joogto iyo nidaam federaal ahaa la suubiyey. haddii aad qabtaan haybsooc, xarig, dil, dhibaato aad ku qabtaan deegaanada kaloo soomaaliyeed oo aad joogtaan, maamulkiinnii iyo deegaankiinnii dib ugu soo noqda, ka shaqaysta, cidna ha ku eedaynina, deegaanadiinna imaada, jooga. annaga maamul ahaanna waxaan ballan qaadaynaa inaan dibudejin idiin suubinno,
idinka kaalmayno arrimaha soo rarista iyo soo qaadista aad deegaanadiina ku soo noqonaysaan iyo dib u dejintiina yaan ka kaalmaynaa uma baahnin maalin walbaba in maxay ahayd dareen cusub iyo dhibaato cusub aan maqalno dadka aad la nooshihiin si fiican kula noolaada ninkii raba inuu noolaado Soomaaliya oo dhan waa isla nooshay waa si joogtaa waxa dhibaatada keenay nabadgelyo xumada iyo shabaab kaan waay shabaab meel walba uu joogo looga digo dadka loo sheego dadkaas reer koonfur galbeed oo gobolada Soomaaliyeed joogo sida aan hore u sheegay haddii aad ku qabtaan deegaanada aad joogtaan haybsoo xarig dil dhibaato wax qof binaadan oo ku noolaan kara ma aha maamulkiinii iyo systemkiinii aad adinka lahaydeen baa nabada meel laga shaqaysta leh meel lagu noolaado leh dhulka ugu barwaaqada badnaa waa in soo dhaweynaynaa deegaanadiina ku soo noqda haddaa u baahataan wixii taakula waa in ka taakulaynayna guddi baan idin saaraynaa dib u dejin diyaar baan in kugu nahay inaad deegaanadiina ku soo noqotaan oo si qurux badan ugu noolaataan oo uga shaqaysaan oo nabadna ku joogtaan intaas waxaa dheer dadka reer Galmudug oo aad la nooshihiin iyo dadka gobolada kale oo Soomaaliyeed joogo dhan oo aad la nooshihiin si nabada kula noolaada si nabada kula shaqaysta dadka dulmiilowyaalka oo shabaabka oo masiibada wada oo isku kiindiraayo iska ilaaliya dadka aad la nooshihiin ka ilaaliya aad iyo aad u mahadsantiin وبالله التوفيق